لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسينا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa nolosha qofka muslimka ah waa inay u dhaxayso laba arrimood. maalin uu shukriyeeyo oo nimco ku jiro iyo maalin uu sabrayo. marka wax soo qaadan doonaa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ka waramay xayaatada qofka muslimka ah. xadiiska dheeraa ee macruufka ahaa ee ka bilaabmayay cajaban liamri lmu'min, waxa la yaab leh oo arrin aad u cajiiba ah qofka mu'minka ah xaalkiisu siduu yahay. qofka mu'minka ah xaalkiisu siduu yahay, xaalkiisa ina amruhu kulluhu khayr. qofka mu'minka ah dhammaan xaalkiisa oo idila waa khayr. nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam hadduu helo barwaaqo iyo saraa shakar ilaah buu ku shukriyayaa. markii ilaahay u nimceeyo ee roobkii u doo, xoolihii u dhalaan, dhulkii u barwaaqoobo, ilaah buu u shukriyayaa. nimcadaa ilaah buu u celinayaa, deetana khayr buu noqonaysaa, fa kaana khayran lah. haddaba haddii ay hesho daraa oo dhibi heshana muxuu samaynayaa? sabar. qofkii muslimka ahaa wuu sabraya, fa kaana khayran lah, taasna khayr bay noqonaysaa. nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam sifada noocaasa ee u dhexaysa bayna asabri washukri, nolosha noocaasa qofka mu'minkuunbaa leh, cid kale ma leh. qofaan mu'min ahayni arrinkaa ma helayo. maxaa yeele qofka mu'minkii waxaa u dhexeeyaa labadaasun. laakiin dadyawa gaalada ahi marka ilaahay u nimceeyo ee barwaaqoobaan, nimcadan waxay u tiiranayaan dhinac kale. masalan qaaruun oo kale ilaahay maal buu siiyey, xooluu siiyey, dhaqaala badan buu siiyey, laakiin wuxuu yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii. xoolahan waxaa lagu siiyey aqoontayda iyo kartideeda anaa la imi. maalinta kale la halaagana waa argagaxaya oo qaylaya. marka nolosha gaalka waxay u dhexaysaa maruu faanayo oo halkaa baturinayo iyo maalin uu calaacalayo ma u dhexaysaa. halka mu'minku u dhexeeyo maruu shukriyayo iyo maruu sabrayo. nebigu sala allahu calayhi wasalam dembigiisii hore iyo ka damba waa la dhaafay, haddana cibaadada iyo khayrka aad buu markaa ugu dheeraa. nebigu wuxuu yidhi falaa akuunu cabadan shakuura. mar haddii aan nimcada ay siiyey miyaanan noqonayn addoon ilaah u shukriya. marka nebi sala allahu alay wasalam wuxuu saa u samaynayaa oo salaadda intaa leeg habeenna u tukanayaa sidii ambiyadu bay ahaayeen, shaakiran liancumih. ilahi subxaana watacaala bay nimcadii uu siiyey uu shukriyayaa mar walba. ambiyadu saasay ahaayeen. marka dadka muuminiintii noloshoodu saasay u dhexaysaa. marka waxaa la doonayaa marka dhibaata dhacdo, tusaalahaan iminka xanuunaa jira adduunyadii, xanuuno badan baa jira, dhibaataa la sheegayaa, waxa khasaaro noqonaya haddii qofkii muslimka ahaa iyo qofkii gaalka ahaa si uun u argagaxaan, isku si uun markaa wada calacalaan, waa arrin loo baahan yahay maaha. qofka muuminka waxaa la doonayaa inuu markay dhibaata dhacdo asbaabta qaato, wixii sababa ilaahay subxaana watacaala u fududeeyey inuu qaataa la doonayaa. markuu sababtaa qaatana haddii qadarkii ilaahay ku dhaco inuu sabraa la doonaya. laakiin marka hore waxaa dadaal baa la doonaya, qofki inuu dadaala la doonaya. tusaale ahaan haddii aad gurigaadu roobka sii deynayo oo halkaa ka dalooshan yahay, haddaad tidhaahdo ilaah baa ii qadaray, halkaa mareer iska saari maayo oo tahay ilaah baa qadaro saasaan iska sabraya, kaas sabir maaha. waxaa lagaa doonaya horta dadaal, soo raadi halkaa yara daloosho meelaad ku guf waxaad saarto. haddaad sooba weydo iska sabir. qofka mu'minka waxaa laga doonayaa isagoo asbaabtii qaadanaya oo dadaalaya, wixii ku dhacaana inuu u safro.
marka qofka muuminka noloshiisu waa sida xadiiska nebigu sallallahu alayhi wasallam sheegayo marka khayrka uu helana wuu shukriyayaa marka dhibaata ku dhacdana wuu sabrayaa marka walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu nimcooyinka badan siiyo ku shukrino haddii kale waxaynu noqonaynaa ummadihii loo nimceeyey sida qoladii reer Saba oo kale ee la siiyey jannataani can yamiinin wa shimaal kuluu min risqi rabbikum washkuruu lah baldatun tayiba wa rabbun ghafuur waxaa la yidhi war ilaahay laba beerood buu ina siiyo bidix iyo midig iyo waxa inaga xiga dhulka barwaaqada ah ilaahay ku shukriya rabbi ghafuura deetana way diideen badanka saasay balaadi markaa u dhacday marka waxaan doonayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala in lagu shukriyo wixii dhibaataan loo safro. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.